alaabahan taariikhdoodu dhacday waxay maanta mas'uuliyiin ka tirsan dawladda hoose magaaladan Boorama ku gubeen godka qashinka ee ku yaala duleedka magaaladan Boorama waxaana alaabahan isugu jireen cunooyinka carruurta kareemyada la marsado iyo alaabooyin kala duwan kuwaasoo maamulka dawladda hoose ee degmadan Boorama qaarkood ay si qasab ah ugu soo qaadeen qaar ka mid ah ganacsatada dukaamada iyo baqaaraha ku leh Boorama halka qaar ka mid ah ganacsatadaasi ay maamulka dawladda hoose ee degmadan Boorama u soo gacan galiyeen alaabahaasi taariikhdoodu ay dhacday madashii lagu gubay alaabahan kala duwan waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin uu horkacay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmadan Boorama mudane Maxamed Faarax Dheereste waxayna ka warameen alaabahan ay maanta gubayaan iyo noocyada ay isugu jirto waxayna baaq u direen ganacsatada ku ganacsata gudaha magaaladan Boorama in alaabaha dhacay oo iibiyaan ay u soo gacan galiyaan maamulka dawladda hoose si bulshada lagaga badbaadiyo caafimaad daro ay alaabahaasi kala kulmi karaan alaabooyinkii dhacay dadka keeni lahaa dhibta alaabadaas waxa haya bakhaarro kamida magaalada dukaanno kamida waxaan ka codsanaynaa ganacsadayaashaas in marka alaabtu ay ka dhacdo ay la soo socodsiiyaan hay'adaha ku shaqale nabiga kaleey salaam xadiis wuxuu yiri man ghashana falaysa minna yani in umada la khayaameeyo oo dawada la isku mudaha noqoto ama tajirka la ismariyaha noqoto ama waxyaabaha la dhoonyada ee la cabo ama la cuno loo qariyo iyadoo oo expire yani dhacday yani shariicada islaamku way xaraantinimeynaysaa waxaan u mahad celinayaa dadka ganacsatada ay soo xilqaamay ee soo gudbiya waxyaabaha dhacay ay ogaadeen inay dhaceen umadoodana badbaadinaya ayaan u mahad celinayaa waxa kale oo aan maxaan ku raahdaa fariin u dirayaa dadka maxaan ku raahdaa ka ganacsada waxyaabaha dhacay ee u qarinaya dadka inay Ilaahay ka cabsoodaan oo dadka maxaan ku raahdaa ummadda ay ka daayaan waxa dhacay ee ka iibinayaan in muddo abaan hawsha ku jirnay maanta waxaan haynaa oo fariin baaqayagii ugu dambeeyay uu gaaray farmasiyada iyo dhakhaatiirta degmada ku nool waxaan leenahay aad baad u mahadsantiin waxaan haynaa maanta waa dawaduna way ka daran tahay waxyaabihii hore aan uga soo shaqeynay ama sharaabiyadii ama kareemyadii iyo hawlihii gaarka ahaa way ka daran tahay waxaan haynaa maanta dawooyin dhacsan oo markay fariimihii ay gaareen farmasiyadii iyo dadkii ganacsiga ka shaqeysay qaybta ka ganacsanayay iska soo xil saaray oo yiri waxaan haynaa dawooyin dhacday oo maanta arkaysaan u jeedaan waxaan leenahay bulshadu fariinta ay isgaarsiiso waa muhiim inaan ka wada shaqeyno fayadhowrka caafimaadka bini aadamka badbaadadiisa degmadan Boorama dadka ku nool badbaadinteeda waxaan leenahay bulshada ka ganacsata waxyaabaha adeega waa bulshada ee ah ama dawo ha noqoto ama sharaab ha noqoto fadlan ilaaliya ummadina cid kaliya ilaalin kartaan waa idinkaan leenahay Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama